soo dhawaada waraysi aan la yeelanay coronavirus. Mudane coronavirus ugu horeyn qolomaa tahay xagaad ka soo jeedaa? waad mahadsan tahay. beer ahaan waxaan ka soo jeedaa qabiilka la yidhaha virus. qawiyaashaydii hore waxay ka mid ahaa kuwa la yidhaha SARS oo China ku dhashay iyo MERS oo Sacuudi Arabia ugu deganaantay. mudane corona waa maxay xawaaraha aad ku kortaa? waa su-aal wanaagsan. marka hore keligay baan galaa qofka 4 saacadood kadib waxaan u tarmaa si aanad malayn karin oo waxaan noqdaa malaayiin. maxaa lagugu bixiyey coronavirus COVID-19? waa iska naanays ay dadku ugu yeedhaan oo waxay magacaygiiba ku dheeraaday. waxay soo gaabsadeen coronavirus iyo sanadkii 2019 markaa markay magacu ku dheeraaday bay iska yidhaahdeen COVID-19 bixiye. goormaad soo shaacbaxday? xagaadse ku soo shaacbaxday? horta haddaan kuu sheego waan iska jiray muddo waan iska jiri jiray laakiin dadku wuxun bay dareemeen uun bishii December sanadkii 2019 meeshii ugu horreysay ee lagu arkay inkastoo aanay halka koowaad ahayn waxay ahayd meesha gobolka Wuhan la yidhaah ee ku taalo waddanka Shiinaha. sidee dadka ugu kala gudubtaa? waa si fudud oo waa haddaan kuu sheego marka hore waxaan raacaa waxaa ka mid ah gaadiidka ka dhigta duufka dareerka miisada iyo qufaca jirka qofka qaba. dhowr albaab ayaan ka galaa dadka. habka ugu wanaagsan waxa weeyaan waa 3 kuu tilmaamo: afka, sanka iyo indhaha. 3 meelood waxa weeyaan waa albaabadan ugu jecelahay ee ugu muhiimsan ka gala dadka. muddo intee leeg ayaad ku hana qaadaa? horta inta badan 2 ilaa 14 cisho ayaan taabo qaadaa laakiin celcelis ahaan waxaan ku odhan lahaa iyada ku xidhantay kolba qofka ku dhaco 2 ilaa 6 cisho. waa maxay hawsha ugu muhiimsan ee qabato markaad jirka gasho? waxaan weerar ba'an oo joogto ah ku qaadaa habdhiska neefsashada iyadoo aan ujeeddadan ka leeyahay inuu yahay inaan amsixiisa qaado. hagaag, waa maxay deegaanka aad ugu jeceshahay? waxaan aad iyo aad uga helaa dhulka qabow, dhulka qoyan qabow ee weliba madow, nadaafaduna aad koogu xun tahay. mudane coronavirus waa maxay astaamahaagu? xumad, duri, qufac, qalalan iyo daal fara badan ayaan inta badan laygu gartaa. sidee loo baadhaa amba loo ogaadaa qofka aad ku dhacdo? inta badan sanka iyo afka qoyaankooda ayaa la baadhaa amaba duuf ayaa laga qaadaa oo halkaas laga baadha. waa hagaage, maxaad jeceshahay? waxaan aad iyo aad u jecelahay dadku markay meelaha buuqa isku yimaadaan. meelaha qoyan baan aad u jecelahay san horeba u sheegay. meelaha qabow waan jecelahay. meelaha nadaafadooda xun tahayna aad baan u jecelahay. maxaad ugu neceb tahay? waxaan ugu necebahay oo aan laysoo marin oon ka naxaa in dadku guryahooda joogaan ku nagaadaan, inay nadaafadda badiyaan, inay daaqadaha furan ay laydhsiga guriga u soo daayaan. meelaha qalalana iyagana aad baan ma sii jecli. meelaha kulul iyagana ma jecli, dabka waan ka xanaaqaa. iyo weliba luqluqashada badan oo iyaduna dee dib iga soo tuurta jirkii oo aad baan u necabay. qof kasta miyaad dishaa? maya, dadku qalad bay iga fahmeen. dad badan oo aan ku dhacaa 80% oon weerar ku qaadaa way ka bogsadaan iyagoon dawo iyo waxba dhaqtar baan u daweyn. 100% ilaa 17 waxay u baahdaan in la daweeyo oo dhaqaatiirta ay tagaan. wuxuun baan dilaa 2 ilaa 4 dadkaan ku dhaco 100%. dadka nooceed dishaa? inta badan waxaan dilaa oon ugu badanahay dadka la nool xanuunada sida macaanka, dhiigkarka,
xanuunada neefsiga. carruurta ma ku dhacdaa inta badan carruurta waan ka dheeraystaa waa baan iska daaya intooda badan mar baan yar safmaraya. ma ii sheegi kartaa sidaan iskaga ka ilaalin karo haa inkastoona jeclayn waxaan ku odhan lahaa gurigaaga joog, maqaaxiyaha ka fogow, mafrashyada, suuqyada, meelaha fadhi ku-dirirka, meelahaasoo dhan iska ilaali, ka fogow. saabuun ku farxalo mar walba. hindhisadaada iyo qufacaada ku dabool suxulkaada si aana dadka kale ugu gudbin. dadka kale u jidso 1 mitir ugu yaraan oo meelaha maaragtay ummaddaa iska ilaali. gurigaagana laydhof. waxaa kugu dari lahaa albaabada iyo meelaha la taataabto sida xandaraabiyada, weelka cuntada iyo qalabka ugu weysaysta oo kale mar walba tirtir oo nadiif. dhankaagii xumaan aragnaye wax wanaaga ma leedahay ama waxaad filaysaa inaan war walba xumaayo. waayahay war horta marka koowaad odayaashii suuqa iyo qaadka looga taag waayey guryahoodii masoo caga dhigteen. wax soo saarkii qashinka iyo qurunka adduunyada kusoo kordhinayay sida bacaha iyo wixii lamida qiiqa iyo aad baan u yareeyey. in aanay yarayn karin dawladuhu waxay ka hadli jireen oo dhan. waxaan si qurux badan usoo bandhigay ducfigii bani aadamka dadkiismoodayna xoogga iyo aqoonta leeyima ducfigooda kustay. taa waxaaba ka sii daran dad badan oo xaggii aan loo soo jeestay oo toobad alla keenay. muda corona maxaa ugu weyn waxaad ku faraxsan tahay horta waxaan islahaa hayar qari baan islahaa laakiinse mar haddaad i weydiisa oo kuu jawaabi doonaaye waxaan dhirbaaxo lama filaana ku dhuftay caqligii bini aadamka waan dawakiyey. taariikh lama filaana ayaan reebay oo bugaagta sanado badan baa layga sheekayn doonaa inaan laga sheekayn xawayaanada iga waaweyn ee awoodda dadku ay mooda inay leeyihiin. inna wax talo ah mana siin kartaa oo maxaad kugu meeya talada ugu weyn aan ku siinayaa waxa weeyaan si aad iiga badbaado. kow gurigaaga joog inta dawo ama talaal baa halkan loo helay. waa hagaag mudane corona aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay wakhtiga aad bixisay